balse markaan aan eego falalka ammaan darri ee mararka qaar ka dhaca magaalada Muqdisho iyo wadooyinka ay ciidamadu xiraan oo saameyn adag ku yeelata ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho taasoo mararka qaarna ardayda ku qasabta inay dalka isaga soo dhoofaan dhinaca kale wadankani Kenya waxaa ku soo badanaya ardayda wax ka barta waliba dhinaca jaamacadaha haddaba arrimaha iyo arrimo kale waxaa barnaamijka hargalka u waramay oo wariyaha RTN Cabdilcasiis Barro uu ka wareystay Saciid Daahir oo ka hadlay arrimahaas watay Saciid Daahir ku soo dhaw RTN iyo barnaamijka hargalka bal marka hore waxaad nooga warantaa ammaan darrida ka dhacda meelaha qaar ee Soomaaliya sida qaraxyada wadooyinka xiran iyo qolaadaha meelaha ay ka jiraan oo kale saameynta ay ku leeyihiin dhalinyarada waxbarata ee gudaha dalka ku sugan aad u mahadsan tahay sida wacaneed igu casuunteen telefishinkan RTN iyo adigoo Cabdilcasiis oo ku mahadcelinaya marka hore marka labaad dad aan soo daadego su'aashaadii ahayd saameynta ay ku yeelanayso ardayda khaasatan kuwa xamar ku barta dhibaatooyinka amni darro ee soo wajihi kara haday noqoto sidaad ka warantayba adiga jidadku xiran ama qaraxyadan hadiya jeer marmarka qaar dhaca iyo dhibaatooyinka kale beledka amni darre ka jira runtii horta laba kala qaadayna ani ahaantayda waxaan oran lahaa waxay maskaxiyan physically iyo mentally labadaba way u saameynaysaa maskaxiyan iyo jismiyan way u saameynaysaa amni darrada xaaladda ardayda haddaan u sii dhaadhaco midda jismiyan sidii u saameynayso waxa ka mid ah ardayga saaka soo kalahay ee hooyadiis canjeero soo siisay ee quraac soo siisatay loo soo diray goobtiisii waxbarasho intii uusan gaarin waxa badana dhacda in uu ku waxyeelo ku gaarto haday dhaawac tahay iyo hadii ay dhacdaba in ilaahay tiisi ay u qadaro ay ku dhintaan kiisaskaas oo badan waa la arkay midda labaad aan rabo inaan uga hadlana waxay tahay maskaxiyan ay saameyn ku yeelanaysaa meelan safe ahayn oo nabadgelyadeedu taam ahayn ardaygu uusan dareemeyn xor ardaygu uusan maskaxdiisa furfurmaynin markii ay noqoto subaxii aroortii kale markuu yimaado oo uu naxsan yahay oo uu ka fikirayo saakay nabad qabtaa jidka miyaa xiran walwal kale ku jiro waxbarashadii iyo dareenkii uu siin lahaa ba waxay noqonaysaa inay ka weecinso arinta iyada ah oo cabsi watahay hadda Muqdisho oo kale mararka qaar wadooyinka la xiraa mararka qaar weerar qaraxyaha dhaca inta badan waxa ay dhibaatooyin ka dhacaan goobaha dadku ay isugu yimaadaan ardaydu ay kamid yihiin maqaaxido waxa jira qaraxyada la beegsado oo internet ama wireless loo soo raadsado ay dhalinyarada waxbartay waliba kuwa jaamacaduhu ay daraasaadka marka ay sameynayaan isugu yimaadaan oo kale bal arrimahaas marka loo eego gudooda waxbarashada Soomaaliya saameyn ma ku yeelanaysaa leedahay maxayse tahay hadii xal loo heli karo aragtida runtii horta xalka intaanan u gelin saameyntu waa iska cadahay oo ardaygu wuxuu rabaa kaliya goobtiisa waxbarasho inuu tago oo wax ku akhristo kaliya ma rabo waxa jiro aalada kale oo ka caawinaya waxbarashadiisa in sida internetka kale sida inuu tago goobo wax lagu akhristo kale ardaydu marmarka qaar waxay u baahan yihiin inay ka soo baxaan fasalada oo ay tagaan meel lagu nasto kale ay buugaagtooda ku akhristaan dalka maadaama meel walba qofka ardaygu tago oo ama uu adeeg ka doonto ama uu u doonto si uu uga soo iibsado ama uga soo dukaameysado waxyaabihii ka caawin lahaa iskuulkiisa sidii dharkiisii buugaagtiisii iyo waxyaabihiisii waxa dhici karta saameynta ardayda inay baylah u yihiin oo ay saameynta ay saameyso xalka ku soo haray xalku horta sideedaba ama jaamacad haday tahay ama iskuulaadka yaryarka haday tahay ardayga maadaama magaalka xaalkeedu uu iska yara xun yahay waxa fiican iskuulaadka dadka meesha ka arrimiya ee waxaan ka wada dawladda waalidka kulli in la iska saaro xil ah in ardaydan lagu dadaalo nidaam ay looga aqoonsado dadka kale ee beledka ku dhaxmaraan ama ardayga waxaan baan ahaantay soo jeedin lahaa hadii ay macquul noqoto ardayda waliba kuwada yaryar kuwada iswadi kara ama jaamacadaha dhigta waa arday waaweyn oo wax garan karta oo xaalka la socon kara laakiin arday waxa jirta dugsiyada hoose iyo sare laakiin aan wali maankoodu u kala go'in kuwa ayaga ah waxa fiican in
la soo ama lagu soo daro macallimiin ama dad guide gareeyo la socdo oo ilaaliya ama sida dhacdaba magaalku maadaama xaalkeedu uu cakiran yahay aanan sida dhacda la iska soo daayay ardayda iska soo baxaan xilliyada arday waxa arkaysa iskuulaadkii waxa lagu leeyahay waa break time wala iska soo fasaxay ardaygu meelahay waxay soo cunayaan waa caruur qaarkood waa iska soo dheeleeyaan iska soo ciyaarayaan amaan daradii saameynaysa marka in waqtiga from subixi ilaa waqtiga la yareeyo xakameeyo bixitaankooda dibadda ama ay baylaha u noqonayaan Soomaaliya waxa aad ku soo baratay oo kulli ardayda jaamacadaha Nairobi ka dhigatana waa tahay markaad eegto xaaladii aad wax ku soo barateen iyo markii aad eegto Nairobi sida ay tahay maxaad dareen ahaan dareentay leedahay ardayda Soomaaliyeed way u baahan yihiin waana qasab dawladda Soomaaliya inay maanta samayso aad iyo aad waxaan marka hore rabaa in aan kaga faa'iideysto fursadan in aan hal isbarbardhig yar ku sameeyo dalalka kale iyo halkan aan joognaba iyo dalkeeni sidii aan la jeclayn inay ardaydu wax u bartaan midda koowaad waxa waaye halkan markuu qofka ardaygu soo kaco oo uusan ka fakaraynin saakay ama waqtiga uu ku xisaabtamo 30 daqiiqo ka hor xilligiis uu bilaaban lahaa daraasadiisii uu si nabad ku gaaray uu og yahay marka laga soo tago jidadka ciriiriga zaxmada gawaarida marka laga soo tago uu ku xisaabtamaya ma ahane uusan wax kale ku xisaabtamaynin maskaxdiisu iyo dareenkiisu u soo jeedo iyo sida walaalaha xagga wax ku barta ay kaliya zaxmad uga baqayne ayba uga baqayaan saakay ama waalidkoodna ay uga baqayaan ma soo noqonaysaa asoo nabad qaba marka ardaygu heerkaas gaaray ku fakaraya waxay noqonaysaa cabsi meesha ugu sareysay maskaxdiisii kana bedelaysa maskaxdiisina saameyn ku yeelanaysa dhankiisii waxbarasho marka halka wuxuu noqonayaa wadamadan ardayga waxa la siiyaa tixgelin aad u dheer oo haday xataa iska daayinay dhinac kale ay noqotay marka ugu sokayso oo ay wadooyinka goynayaan waxa dhacda in gawaarida xataa qof walba uu garto value-ga qiimaha uu ardayga leeyahay ardaygu sideedaba waxa waaye sidaan ognahay waa ubixi bari iftiinkii bari dalkan bedeli lahaa dadkan uu soo kici lahaa indhihii wax u baran lahaa waaye marka qof walba oo aan wax baran wadankan waa og yahay kan wax baranaya ee baaga sita ee uniformka wata soo waxa dhacaysa jidad loo istaajiyayba ama marka arday soo goynaya iskood gawaarida u istaajiya ixtiraam la siinayo waxa kale la siiya sida aan arko gawaarida dadweynaha kaleeto ardayda yaryar iyo kuwooda dhexdhexaadka ah marmarka qaar waxa lagu soo qaadaa si marmarka qaar ma aha inta badan oo hadda ma dhihi karno ma guud ahaan kama dhihi karno laakiin marmarka qaar gawaarida caadiga marka arday arkaan waa la iska soo qaadaa ilaa waa la sii dhaweeyaa si bilaash gaadiidka dadweynaha because waa la og yahay inuu arday yahay jeebkiisa waa la og yahay waa la yaqaan xaaladdu ku sugan yahay marka dalkeena sidaan u rabno in ardayda aqoonsi gooni la siiyo uniformkooda tixgelin la siiyo la caawiyo dadka dhan ay bartaan in ardayda ay ka duwanaadaan dadka la wada caawiyo waa tahay saacid dhinaca kale markaan eegno Soomaaliya waa dal burburay qolaada fara badan ayaa muddo soo tixnaa ilaa iyo 30 sano ku dhawaad baa hadda dib loo bixiyo kabanaya markaad eegto bulshada qaar waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya waxbarasho tayo leh aysan oolin marka la eego aqoonta iyo sida taala adinka ardayda jaamacadaha Nairobi ka dhiganaya tiin Soomaaliya wax ku soo barateen markaad eegto aqoonta aad Soomaaliya kala timaadeen iyo halkan markaad timaadeen bal tayada waxbarashada dalkaad kala timaadeen maxay idin muujisay runtii waa maadsan tahay tayadu horta waxa qeexa ama xadida ama controla dawladdu dadka ay u xil saaratay sida tacliinta sare wasaaradda tacliinta sare kale iyo ururka jaamacadaha iyo higher education ka maamula tayadu marka hadii systemkii dawliga ahaa iyo cidi control lahayd ayagaba ay ka jiifto hawshu dhankeeda jaamacadaha iyo markii loo soo daadego iyo dugsiyada kaleetaba waxa dhacaysa in ay noqoto meeshii in laga fiirsho meelaha qaar faa'iido laga fiirsho sideedaba laba wax baan adduunka sida caadiga ah intaan ogahay aan laga fiirin faa'iido ujeedadooda ugu weyn aimkooda ugu weyn uusan noqonin faa'iido doon waa goobaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada haddii goobaha caafimaadka ujeedkooda ugu weyn faa'iido ay noqoto meesha waxa ka baxaya tayadii oo beeshankii qofkii dhaawac ahaa ama qofkii jirana si fiican looga taxadarayo goobtii waxbarashadana qofkii hadduu eegayo faa'iido kaliya eegayo meesha waxa ka baxaysa quality tayadii meesha ka baxaysa
oo qof faa'iido raadinaya haddana way adag tahay si uu tayo ugu dadaal because qof walba uu qaadanaya wax walba uu isku jacbursan karo isku jacbursanaya ma dhahayo nidaamka hadda ay dadkaas ku dhaqmayaan tayadoodu kulli aniga iyo qof ii dhow iyo ma xadidi karno waxa xadidi kara body dhihi kara oo u dhisan oo nidaamsan jaangoyn kara laakiin tayada adinka la diga laakiin jaamacadihii markii aad ku biirteen oo kale la qabsigeena iyo aqoontiina maadaama dad dalal nabdan wax ku soo bartaad galas la fariisateen maxaa daranteen runtii dhinac badan waan ka jiifnaa dhinacyo badan aan ka jiifnaa oo waa dareemi kartaa dalku intaasuu burbur ku soo jiray ma uusan helaynin facilitieski loogu talagalay inay dadkan helaan dadyoogan waxay helaan hadday noqoto meelaha wax lagu aqristo magaatibto iyo librariesko kaleeto iyo aalad iyo qof walba wuxuu baranayo facultygu baranayo wixii caawin lahaa hadday media tahay meelihii ay wax ku sameyn lahaayeen si xor ah haday engineering tahay meelihii ay ku sameyn lahayn haday caafimaad tahay hospitaalada iyo goobihi waxbarasho xagga marka wixii ardaygu waxa laga yaabaa inuu wato theory ama aragti aqoonti guud inuu iska haysto laakiin uusan hayn meeshii uu ku practice xirfad ahaan meeshii uu ku sameyn lahaa uusan soo practice garayna dhici karta waa tahay dhalinyaro fara badan ayaa Soomaaliya jaamacadaha ka soo baxaysa qaybihii hore waxbarashada heerka labaad jaamacadaha dalkan iyo dalal kale la tagaya haddii bal waaye aragnimadaada aad eegto dhalinyaradaasi na daawanaysana aad bal uga faa'iideyso maxaad is dhihi lahayd waa muhiim ardayga Soomaaliya ka soo baxaya inuu ku soo fikiro markii dalkeena oo kale u imaanayo runtii aad ay su'aasha muhiim u tahay qalbigaagana waa dareemaya sida ay ugu weyn tahay su'aasha waana mid la rabo aniga iyo dadka kale khibradda u leh dhankan waxbarashada waliba tacliinta mideeda sare ee higher education-ka ah in ardayda laga siiyo bal talooyin intaysan soo bixin ama aysan soo bilaabin safarkooda waxa dhacda in ardayga horta marka ugu horeysa uu yahay mar dhoof ama mar imaatin dalka uu ka soo baxo waxyaabo badan sida uu xareysan lahaa nidaamkii jaamacadaha waxyaabo badan waxa imaanaya cultural difference wadanka waa la kala duwan yahay dhaqamadii waxa imaanaysa luqadihii la kala duwan yahay dalka xagga markaan joogno caqabada ugu weyn ee dadka hadda maamula sistemyada waxbarashada Soomaaliya ay haysta waxa weeye ardaydii way soo bareen luqad gooniya wax ku soo bareen oo standard u ah aan dhahna ama Arabic ama aan dhahno English laakiin ardaygii sidaas la mid ah luqadii uu wax ku soo bartay waxba kuma gudbin karo oo macnaha hatta kuma xiriiri karo caqabada dhanka luqadaha haysata marka qofka ardayga inta soo baxo jaamacad yimaado xareysto lacag waliba qiimaheedu aad u sareysa bixiyo markuu yimaado ay qabsato caqabad dhanka luqadda waxa dhan lagu wada xiriiray communication-ka wadankan ugu weyn waa English-ka kale hadda wadankan aan joogno markaan ka hadalno English-ka marka adiga hadii aadan على ميل آدم كجوجين أو تكون هذا الكرتو أد وحاجة يوحد وبحنتها ينكم وكلها آدم جود بينكرين فرين هذا وحكوها بون إن آدم جامعة توسو قلين. هذا يضم ستة حالة ده مركز لقطها سيف عين نسكت. لقطها أنو سكت يارينو كوليجيا ده أنو قال. هذا ما ستة ساعد أو برامج كأن نوجور رماي إن ظاهر ساعد ظاهر برامج كارجلك تبان جعلها هنا نديكو عليه فرحية عبد الله مؤمن. وتهاي كاسنا وحوها وريا RTNA عبد العزيز برو ومركا هرجلكا وريسنايي ساعد ظاهر oo kamida ardayda wax ka barata wadankani Kenya kana warbixinayay caqabadaha ardayda Soomaaliyeed marka ay joogan Soomaaliya iyo sidoo kale marka ay wadankani yimaadaan